waa soo dhawaada waxaan rabaa maar kale maqaal kale oo la yaab leh oo uu qoray TV-ga Jubbaland ayaa rabaa in halkan kugula wadaago TV qaranka Soomaaliyeed oo isagana markaas raas Kambooni warbixin cajiib oo ka soo diyaariyay markuu ugu horreys waxaan ka dalbanayaa si dadka Soomaaliyeed iyo waliba sidoo kale bulshada mujtamaca kale ay u arkaan waxyaabaha maanta ama xifaaltanka culus TV-ga dawladda Soomaaliya iyo waliba soo kale TV-ga maamulka Jubbaland kala dhaxeeya waxaan ka dalbanayaa muuqaalka in share gareedo meel dheer nala gaarsiiso wixii adiga fikir ahaan ama tusaale ahaan ama aragti ahaan aad ugu biirin lahayd aad ku soo birso mahadsanidin soo dhawaada maqaalkan waxaa qoray TV-ga maamulka Jubbaland waxaana u qornaa sida tan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Beled Xaabe ee gobolka Gudo ayaana ka soo horjeestay ayaa la afduubka Xasan Sheekh Maxamuud iyo maleeshiyaadkiisa ay rabaan inay ku qabsadaan dadka deegaanka ee degmada Beled Xaabe mar rabo inaan qoraal hore ugu soo dheeraado masana hore u soo akhriyo wax macno weyn oo soo kordhinayna ma balahaba laakiin waxa rabaa inaan yar aan ka tuso kuna aadan maleeshiyaadka marka la yiraahdo inta badan ereygan waxa isticmaala jiray ama markaas isticmaalada dawladda ama TV-ga afka dawladda ku hadla loo adeegsado kooxaha aas iyo waliba soo kala shabaab bal maanta way ka soo gudubtay shakada halkii hore u joogtay waxa ay taagan tahayba in TV-ga dawladda Soomaaliyeed iyo mujtamaciisa Soomaaliyeed ba yaani lagu tilmaamo inay yihiin maleeshiyaad ama dad dalkan iyo dadkan yaani caqabad weyn ku ah TV-gan inta badan shaqadan waxa gabay baan oran karnaa ama markaasi shaqadan iska laha oo walibana meel ugu dhacay oo meeshii la rabay ama stage-kii la rabay maanta soo fuul ay ahayd wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliya oo inta badan muddooyinka ugu dambeeyay ku howlaneyd ama warfaafinta ba aad haday doonto in yaani Facebook yaro oo dhalinyaro ah iska social media ay hawada ay ka saarayday ama markaasi ay ka hortageysay waxyaabaha khaldan ay baahinayeen bal maanta dawladda oo dhan ayaa lagu tilmaamaya maleeshiyaad oo aan naqaano caqabadaha iyo dhibaatada ay markaasi bulshadu ay kala kulmi jireen laakiin waxa u muuqata arintan xifaaltanka culus ee warbaahineed ee hadda geeyga Soomaalida ay ka jiro saameyn weyn ku yeelan karto jiilka yar ee raba ama hadafka kale mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya mar inuu soo fuulo masraxa siyaasadda Soomaaliya looga arrimiyo arintan ayaana u muuqata in saameyn ku abuuri karto mujtamaca bulshada iyo waliba sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee kala aragtida doonaan kara haddii maanta TV Soomaaliyeed ma TV ajnabi TV wadan kale laga leeyahay waa TV Soomaaliyeed oo warbaahinada Soomaaliya kamid ah walibana maamul ah oo waliba state ah laakiin daabacaya waxyaabo malaf adag ah oo markaas maanta in dawladda Soomaaliyeed oo indhaha caalamka dhan ay ku haydo ay maanta wax walba ay Soomaaliya lagala xaajiyo in lagu tilmaamo maleeshiyaad malaha waxa lagu qiyaasi karaa baawarka dawladda ay haysato baawar ka duwan ay leeyihiin oo kale oo indhaha caalamka ayaa iyaguna ku sii fidi karo sababtoo ah maqaalkan marka la daabacay dad far badan ayaa comment ka dhiibtay waa sidaad arki kartiin commentiyada oo inta badan laga dhiibanaya ayaa ah kuwa markaasi qalifsan qudooda oo inta badan ilaa waliba dhowr ayaa laga bixin Beled Xaawe ayaa laga shiday birmade Xasan Sheekh Maxamuud waa wonderful ilaahay amarkii Beled Xaawe iyo waliba meeshii Cabdirashiid Janan inta la joogay waxa kale oo jira guuliyo adi Mandheera ma aha BH waxyaabo la mid ayaa la daabacay taasina saameyn weyn ay ku abuuri kartaa mujtamaca iyo bulshada Soomaaliyeed marka in laga hortagayo waa muhiim oo walibana sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ay u mideysanaadaan midnimadooda taasina waa wadada kaliya maanta Soomaaliya ku hormari karto adigu maxay kula tahay in dawladda Soomaaliyeed oo dhan lagu tilmaamo maleeshiya mowduuc aan rabna kaas waay